warbaahinta ka howlgasha gobolka Gabiley oo maanta magaalada Gabiley ku qabtay kulan warbaahineed ayaa waxa ay ganafka ku dhufteen xadhigii iyo jirdilkii shalay lagula kacay wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim oo ay u geysteen ciidan u watay taliye ku-xigeenka saldhigga magaalada Gabiley. warbaahinta ayaa waxa ay ku tilmaameen falkaasi shalay lagula kacay wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim mid aan sharciga dalka iyo qawaaniinta dalkan u yaala meelna kaga oolin. intaasi kadib saxaafadda ayaa waxay mahadnaq u soo jeediyeen taliyaha qaybta booliska gobolka Gabiley oo ay ku sifeeyeen mas'uul ka shaqeynaya isku xidhka bulshada iyo laamaha ammaanka ee booliska isla markaasina kor u qaadaya xiriirka kala dhaxeeya warbaahinta iyo ciidanka booliska gobolka Gabiley. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay oo faahfaahiyay falkii shalay sida uu u dhacay wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim. waxa ilaahay mahadiya koladaan caafimaad qabo dhaawacayna gacantiga soo gaaray mooyaane waxay shalay toole dhacdo foolxun oo aan sharci la igu soo marin taliye ku-xigeenka saldhigga ayaa isagoo ciidan wata waxa igu soo galay goob fadhiyay kacwad xidhanteedii igu dhaana waan sare kacay amarkoogii waan qaatay sidaadaan u istaagay katiinad bay igu xidhan katiinada markay igu xidheena laag iyo feer iyo wax kasta oo bilaamay gacanta uu saas u yimaroojiyay faraho dhan waxay jaban imika fartaasi kuwa kale wada cadgoyn oo kuwa bararka adarkasan taa waxay u xigtay ilaa intaan gaariga fuulay waxba leela dhacay saldhigii baa la geeyay saldhigii iyadoon oo biiga galay wax hal wax la iga qorayba way jirin haddana way meeshii bii galiyay haddana way soo saaro mobile buu sitaabuur waa la ibaaro haddana sidii si leeg buu faraha yimiroojiyo qayradayda maxaabiistu yaabtay taasi ka bacdi waxa ilaahay mahadin waxaas oo dhan ku ilaaway iyo dhacdada foosha xun la jirdilka la geystay taliyaha qaybta gobolka Gabiley ee cusub ee loo soo magacaabay General Janagale ama Janagalan oranaya oo si fiican oo anshax wanaagsan dadka kula dhaqmaya inamadii saxaafadda ee Gabiley waa kuwa markay u tageen si fiican bay isku afkarteen wayna wada hadleen waxayna ka wada hadleen arintayda waxay noqotay in anigii la raali geliyo taliye yiraahdo Mukhtaar raali ahaw bada saabkii sidoo kale arintii uu galay oo raali ahaw taliye saldhiggu uu joogay oo isna madaxiisa micay qaadeen isagiina waxay ku yiraahdeen raali gelinaka waan ku gamo way igu go'da waxa loo wax ka dambeeyay ma jirto gacantayda ay jabana waxa loo wax kaga doonaya ma jirto iyaga igu go'daayo aniga ka dambeyn laakiin waxaan aad u amaanaya jananka ciidanka booliska Soomaaliland ee soo magacaabay taliyaha qaybta Gabiley ee wax garadka ee bulshada inuu isku wado raali ka ah wax aan cadaaladna waafajiyay arinteedii mid kale jirta oo ku celinaya Facebook la sameystay ee Mukhtaar Nuux ku qoran tahay ee dadka laga caayo ee cid walba laga caayo ma aha aniga Facebook aanu malihi hal laga foojignaado umada oo dhan waxaan ugu sheegayaa asxaabteeda iyo cid kasta oo daawata muuqaalkaygaasi inay Facebook-aasina ka foojignaadaan sidoo kale waxaan maqlayaa gudoomiyaha saxaafadda ee Solcha xuuto oo isaguna arintaasi ilaa inta aan ka fariisan dhammaan cid kasta oo halkaas soo gasho gudoomiyaha saxaafadda gobolka Gabiley gudoomiye ku-xigeenka iyo dhammaan xubnaha saxaafadda kan isugu timaado kana hadasho dhacdadii foosha xumeed ee maalinkii shalay ahayd ka dhacday magaalada Gabiley kuna kacay nin taliye ku-xigeenka saldhigga booliska Gabiley ah macaan kaasi oo jirdil fool xun ka baxsan sharciga iyo shuruucda dalka u taala kula kacay wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim si sharci darro ah ku galay gurigeygii baadhay isagoo waran la'aan laakiin taa soo dhan iyo sharciga lagu gafay iyo guryaha ayr la baadhay ragga la jajabiyay sidii doonan loo galay taa waxaan ku liqnay Allah ka raali noqday taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabiley oo ah hordhici amaba labeentii isbedelkii uu horeba u ballan qaaday taliska ciidanka booliska Soomaaliland sareeyagaas General Dabagale oo isagu hore u sheegay inuu dib u soo celinayo kalsoonidii ciidanka Soomaaliland iyo bulshada runtii shalay markaan anigu ka arkay waxaan xusuustay ninkii la oran jiray Shamaaxiye ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u qaabilsanaa Cabdi Ilay garaacista iyo jirdilka ummadii lagu xasuuqay jeelogaadeen waxaan cambaaraynayaa falka foosha xun ee ku dhacay xogayaha saxaafadda gobolka Gabiley ee uu geystay anigu ma garanaya waa sheekadani waa ka dariyo dibidhal kuwii hore biraawaran u meydh xiri jireen kan laag baa dadka la dhacaya sida jigijaan taliyayaashii hore saldhigan iyo taliye ku-xigeenka saldhigan wuxuu ninkani dheer yeelnaba waaran laan buu guriga iska geliyaa kow xalqafaya macal sariiraha hoostoodii
iyo gacantan uu ka hadlayo labadaaba uu dheeriya kuwii hore waxaan cambaaraynayaa feerka iyo laaga iyo farajabinta foosha xun ee uu kala kacay wariye mukhtaar nuux ibraahim aan waxa leeyahay markii koowaad uu saxaafadda laag la dhacay qolada saldhigga iyo qaybtii waxa looga baqayaa inaan ka ayro laag la dhacayo feer waa maxamed cabdi cumar maxamed wadin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley